السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإني السلام يا برشا Soomaaliyeed وأنيقو محمد عبدي waxaan kamid ahay ganacsatayaasha Kampala Uganda ku nool waxaan ka ganacsadaa alaabta elektarooniga dukaan weyn ayaa iga furan magaalada Kampala howlaha ugu adag oo soo food saaraya ganacsigeena waxaa kamid ah soo saarista alaabada gudaha taasoo keeni karta xirfadaha dibka ii qabsan jiray oo ganacsigayga soo gaaray sanado ka hor waxaa kamid ahay alaabta iga soo daahi jirtay ama quality fiican oo alaab fiican lii keeni jirin runtii anigoo dhibaatada ay haasato yar saaxiibkayga ayaa arkay website-ka warshadaha.com ayuu wax iga sheegay marka tilaabo ayaan ka qaaday website-ka aan baxthi badan ku sameeyay waxaan soo ogaaday qaabka u shaqeeyaan iyo warshadaha kale oo wadamaha kale ku yaalaan la xiriiraan waxaan la kulmay wiil saaxiibkayga ah oo ii sheegay dhibaato noocaas inay haasan jirtay wuxuuna ii sheegay oo kale sidoo dhibaatadaas ooga baxay markaan weydiiyay wuxuu ii dhahay website-ka warshadaha.com ayaa ku saacideyn kartaa runtii baxthi badan ayaan soo sameeyay sidii warshadaha u soo shaqeeyaan sidii website-ka u shaqeeyo iyo warshaduhu la shaqeeyo oo dibadda ku yaalaan runtii website-ka wuxuu igu xiriiriyay warshadaha wadamaha kale ku yaalaan iyo numberkooda iyo ciwaankooda isiiyo markaan la xiriiray waxa ay tusiyeen qiimaha iyo quality-ga alaabta la soo dir lahay iyo qaybka iyo sida lagu soo dir lahay waqti yar runtii aad ayaan ugu farxay ganacsigayga wax badan oo isbedel far badan ayaan ka arkay faa'iido iga soo gal lahayd kor ayaa u kacday runtii waxaan jeclaan lahay inaan wax yar iniga fahamsiyo macluumaadka ku saabsan website-ka warshadaha.com warshadaha.com waxa isbedel far badan ayaan ka arkay xagga ganacsigayga oona quality iyo qiimo fiican oo alaab far badan ku soo galan kartiin dhinaca dibadda anigoo jeclaan lahay sidoo anigu ganacsigayga isku bedelay oona ruux walba oo aniga oo kala ahaan jiray oo dhib haystay inuu website-ka warshadaha.com galo sifo uu isbedel far badan kala kulmado haddii aad tahay macaamil ama qaybiye tani waa goobta ugu fiican oo idin saacideyn lahayd waxaan warbaaharin warshadaha.com waa xal aan kama dambeys lahayn. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.